Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wacanno wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Kaahiye Media ku soo dhawaada warka Kaahiye Media qodobada saaxiibayaal warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo aad u qalafsan oo ka dhaxaloosan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo hogaamiyaha Ahlusunna wal Jamaaca wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee hay'adda WFP u soo magacawday Soomaaliya madaxweynaha Somaliland iyo qaabilsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ku kulmay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo socdaal ku gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo magaalada Washington kula kulmay xubno ka socda IMF iyo bangiga adduunka iyo warar dheeraad ah oo ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal xooggan oo ciidamada dawladda iyo xarakada Al-Shabaab ku dhexmaray gobolka Hiiraan qodobada dibadda aad ku daawan doontaan warka Kaahiye Media waxaa ka mid ah militariga Pakistan oo sheegtay inay weerar ku dileen ku dhawaad 10 dagaalyahan oo ka tirsan Taliban iyo Amnesty International oo cambaaraysa mudaharaadayaal lagu xirxiray dalka Ruushka caasimadiisa Moscow mar kale daawasho wanaagsan halkan saaxiibayaal waa warbaahinta Kaahiye Media haddii aad channelkan ku cusub tahay hamogaan inaad saarto subscribe like aad dhado share aad la wadaagto saaxiibada ku soo dhawaada qodobada aad daawateen oo intii hore ka faahfaahsan aynu ku bilowna xiisada siyaasadeed ee ka dhex taagan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale hogaamiyaha Ahlusunna wal Jamaaca Macal Maxamuud ayaa cirkaas ku sii shareertay ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca oo galinkii dambe ee shalay la wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud isla markaana sheegay in aysan suurtagal in magaaladaasi laga soo dejiyo ciidamo u dalbaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo laga qaadayo magaalada Muqdisho isla markaana la geenayo magaalada Dhuusamareeb ayaa xaaladooda wili ay kacsan tahay Macal Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Khayre oo kulamo gooni oo yeeshay ayaan isku qanci waayay guud ahaan bin xal laga gaaray xaysada ka dhex taagan labada mas'uul waxa sidoo kale odayaasha dhaqanka ee ka howlgaleen sidii xaaladaasi loo dejin lahaa guud ahaan waxa la sheegay in shirarka la galay ay noqdeen kuwo fashilmay waxa sidoo kale wararkuntaas ay ku darayaan in ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca ay barqanimadii ka celiyeen magaalada Dhuusamareeb diyaarad waday ciidamo ka tagay magaalada Muqdisho oo tiradooda lagu sheegay 100 ciidan waxaa la sheegayaa in ciidamadaasi 100 askari dhammaan markay gaareen magaalada Dhuusamareeb garoonkeeda diyaaradaha ay doonayeen inay ka degaan guud ahaan loo diiday isla markaana lagu wargeliyay inaysan degin taasoo qasab ka dhigtay in dib ugu soo laabtaan caasimadda dalka Muqdisho ayna ka howlgalaan xarumihii goortii hore laga qaaday waxaana deegaanada guud ee dawlad goboleedka Galmudug haatan ka taagan xaalado qalafsan oo ku aloosan ra'iisul wasaare Khayre iyo hogaamiyaha Ahlusunna wal Jamaaca Macal Maxamuud dhanka kalena guddiga dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Galmudug ayaa socdaal ku gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug guddiga dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Galmudug oo horey u magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye isla markaana ka kooban 12 xubnood maalmihii ugu dambeeyana socdaal kala duwan ku maray deegaanada iyo magaalooyin hoostaga dawlad goboleedka Galmudug ayaa ugu dambeyn gaaray magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug guddiga intii ku sugan magaalada Gaalkacyo waxay kulamo la qaadan doonaan odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo guud ahaanba bulshaweynta qaybaheeda kala duwan iyagoo kala hadlaya sidii dadka deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ay kaga qayb qaadan lahayn dib u heshiisiinta ka gogol magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug dadka degan magaalada Gaalkacyo ayaa waxay ku andacoonayaan in ay qasab tahay in iyaga lagu qabto shirka iyagoona sheegaya in halkaas uu ku yaalo guriga nabadda hore u dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaate guddiga dib u heshiisiinta ayaa wada sida ugu qancin lahaayeen in guddigaasi u soo diyaar garoobaan inay shirka kaga qayb galaan magaalada Dhuusamareeb waxaana ay horey guddiga dib u heshiisiinta u tageen magaalooyin ay ka mid yihiin Cabudwaaq Huurshe Balanbala iyo guud ahaanba deegaano kale hoostaga dawlad goboleedka Galmudug weli waxaad daawanaysaan qaybaha dhexe ee warka Kaahiye Media iminkana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee hay'adda WFP u soo magacawday Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa xafiiskiisa wasaaradda ka gudoomay warqadaha aqoonsiga wakiilka cusub ee barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee marka magaciisa loo soo gaabi loo yaqaan WFP u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ninka lagu magacaabo Cesar Arroyo kulanka ayaa looga hadlay iskaashi wadaaga u dhaxeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo WFP iyo sidoo kale howlaha ay WFP ka fulisay guud ahaan dalka isla markaana ay ku jiraan dhiirigelinta beeraleyda Soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena uu wasiirka arrimaha dibadda kala hadlay sida u dardargelin lahaayeen WFP mashaariicda ay ka fulisay gudaha dalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday qaabilaad safiirada ka kala imaanaya dalalka caalamka ee loo soo magacaabayo magaalada caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya qaybaha dambe ee warka Kaahiye Media ayaan ku sii dhawaaneynaa dagaal xooggan waxa ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Jalalaqsi la yiraahdo wararka laga helay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM isgarbanaya xarakada Al-Shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarumo ciidan dawladda Soomaaliya iyo kuwa Djibouti ay ku lahaayeen
isla markaana ay ka degnaayeen degmadaasi Jalalaqsi. goobjoogayaal ayaa soo wariyeen dagaalku uu ahaa mid xooggan isla markaana khasaare kala duwan oo ka dhashay asaad oo intaas ku daran ilaa iyo haatan aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkaasi. waxaa sidoo kale la sheegayaa in uu socdo dhaqdhaqaaqyo kale oo la dareemayo in halkaasi dagaal mar kale ka qarxi karo. si kastaba ha ahaatee dagaalkan ayaa qayb ka noqonaya weeraro muddooyinkii ugu dambeeyay xarakada al-shabaab ay ka filanayeen magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolada dalka. saaxiibayaal waxaad daawanaysaan warka warbaahinta Kaahiye Media qodobada Soomaalida waa naga inta iminkana qodobka dibadda. dowladda dalkaasi Pakistan militarigeeda ayaa sheegtay in ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan dagaalyahanada Taliban ay ku dileen weerar ka dhacay dalkaasi. militariga Pakistan waxa ay sheegeen in weerar gaadmo ay ku qaadeen fariisimo ay kooxda Taliban ku lahaayeen gudaha dalkaasi ay ku dileen saraakiil sare oo ka tirsan. waxa ay sheegeen in saraakiisha la dilay ay ka badan yihiin 8 askari isla markaana guud ahaanba ay ahaayeen kuwa dagaal ka fulin jiray gudaha dalkaasi Pakistan. waxa ay sheegeen in ay u taagan yihiin waqtigan in Taliban laga tirtiro guud ahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin dalkaasi Pakistan. Taliban ayaa xoogan waxay ka fuliyaan gudaha dalkaasi oo awood sare ay ku leeyihiin. guud ahaan saaxiibayaal waa inaga inta war wixii dalkii dibadda inaga soo garaad ka daawanayseen Kaahiye Media. hamogaan haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad saarto subscribe like hadda share aad la wadaagto saaxiibada ood ku maasantiin daawashadiina warkan kiisa xiga. amaana Allah.